halkani waa Hirshabelle TV. magaalada Jowhar ee caasimada dawladda Hirshabelle waxaa ka furmay kulan laba geesood ah oo u dhaxeeyay wafdi ka socdo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradaha ka howlgala dawladda Hirshabelle. kulanka ayaa ahaa mid looga hadlayay inta uu soconayay wada shaqaynta u dhaxaysa wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo tan dawladda Hirshabelle. waxaana kulanka uu ahaa sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa qorshe howleedka xukuumadda dalka iyada oo la waafajinaya tan Hirshabelle. Ismaan Barre Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Hirshabelle ayaa kaga mahad celiyay wafdigani iyo kulanka maanta dhaxmaray. wafdiga sharafta la soo dhawaada gurigeena timadeen xaruntii Hirshabelle timadeen statekeena timadeen runtii waan ku faraxsanahay sida dawladnimada ay shaqeynaysaa barnaamijka iyo istiraatiijiyada dawladda Soomaaliya raalli baan ka nahay in muxuu ahaa barbar istaagno Hirshabelle lagu faa'iideeyo diyaar ayaan u nahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Professor Dhagey waxa uu ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya hadallo ayuuna ka jeediyay madasha kulanka oo hore loo waqtiyeeyo oo wasaaradihii lagu tababaro oo laga shaqeeyo laftoodii xilligii ugu habboonaa hadda markaas waxaa ka garanaysaan dawlad kasta oo dhalata labada sano u horeysa waxay mashquul ku tahay inay diyaariso saldhiggii dawladnimo oo aasaaska ahaa iyo referenceski la raaci lahaa waxyaabaha qofka uu raaci lahaa qofka mas-uulka ah meel haddii la keeno meeshaas asaga maskaxdiisa kuma maamulaayo waa inuu jiraa wax uu raacayo waa inuu jiraa xayndaab sharci oo celinayo meel uusan ka bixin yani haweentaa waxay ku maamahdaa lankisha faaris badan soondatiisa soo reebaas يعني هذه شغلة غير برضو وزارة كذا كشغلة برا هذه أقدر أقول لها تي والرئيس الوزراء هنا كشغلة برا هذه أتاي أجازمة وزارة المحور أجازمة واحد هنا كشغلة برا وحنا نقول كلا سواء تصبح والغفر بين النسيم حندار موجود جاي والشقة وولدي سيء وحرمت كيس المشي مركب وحنا ما أنت كهلا مركب وحنا ودول الدولي وحنا نكون صعبان تاعي إن وحنا كل يبغى يسكت عليه ودول الدولي نقطة صعب حرير سنة وأكثر قصنين مركا فرسم أهان هرس إلى أوجه مرة أنا عن كهلا لكن حنا حسوسنا كريه أرنت علمان تقول لي وأرن هري لوجه الشيء والدولة تحدي الدولة دي نمط حدي جوتي كل شيء اللي كل دعايين أو أي دور سكريين يسقي أو فاسن أيا وحنا مركا مرة دي لوجه الشيء سيد لو فوري لها اللي الشيء madaxweyne ku-xigeenka dawladda Hirshabelle ahna kusimaha madaxweynaha dawladda Hirshabelle mudane علي عبد الله حسين علي جودلابه ayaa ka warbixiyay ahmiyadda barnaamijkani dawladda Hirshabelle wuxuu galay 2 sano oo maaragtay adisan yahay waxaana dhacday isbedelkuna wuxuu leeyahay faa'iidadiisana waa leeyahay khasaaradiisana waa leeyahay oo nusqaan uu leeyahay sadogtihiin ba madaxweynaha la riday madaxweyne kala la doortay howl kasta socota gaabay gelaysaa wuxuu sidii hore ugu socdeen uma soconayaan waxay rabaan in maaragtay doorasho dhacday madaxweynaha la soo doortay howlihii gaabaa galay labadaas sano maaragtay isbedel ku dhacay oo jira maamulku sadogtiin wuxuu u yar yahay dawlad goboleedyada dalka ka jira maamulku u yaray waayay ee haddana isbedelkaas oo ka dhacay waxaan rabnaa marka insha Allah hadii la raali ka noqdo inaad wax badan nagala qabatiin qaabka ay wuxuu dhismi lahaayeen oo maaragtay oo la jaan qaadi lahayn guud ahaan qorshayaasha qaran aan oo la jaan qaadi lahayn waxaan idin leenahay soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin golaha wasiiradana waxaan leenahay oo rabaa inaan halkaan uga cadeeyo dalabkayna ayuu ku yimiday wafdiga ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha aniga madaxweynaha ka codsanay ra'iisul wasaaraha inuu noo soo diro wafdi maaragtay dad aqoon-yahana qaabkii loola jaan qaadi lahaay oo Hirshabelle oo la jaan qaadi lahayd qorshayaasha qaranka dad aqoonteedii leh oo nala daadajiyo maamulka dawliga aan ka codsanay waa uga mahad celinaynaa wafdiga ballaaran oo noo soo diray halkani waa Hirshabelle TV.